waxaan u sheegaynaa dadka Soomaalida magaaladan Muqdisho degan ma aqbali doono in maaragtay ay magaaladan noqoto magaalo fasaad inay noqoto ma aqbali doono kuwa ciyaal weerada ah isbiirsanayana haddii Ilaahay yiraahdo go'aano cadcadaan ka gaari doonaa tallaabo loo dhayaana laga qaadi doonaa sidaas si lamid ah kuwa calaqa iyo xashiishka iyo mukhaadaraadka ama balwadda nuucyada kala duwan magaalada soo gelinayo iyo kuwa iibinayo iyo kuwa cunaayo ama cabaayana isku dimbi waa iskuna mid waaye bal haddii Ilaahay yiraahdo arrin loo dul qaadan doono ma ahan waana sidii loo bilaabay inta la bilaabana lagama istaagi doono marka waxaan leenahay wax kalood ka ganacsataa badan ee wax kaloo ka roon oo ka faa'iido roon raadso xaaraana ka ganacsanin dadkaagana ha ku dilin adna isku dilin aan leenahay sidaa darteed ciidamada waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadaalka ay sameeyeen iyo waqtiga ay soo taagan yihiin iyo inay diyaar u yihiin inay saacad walba u soo taagnaadaan sugitaanka amniga sidaa darteed waxaan rabnaa hawshu hadday bilaabato inaysan hakanin ilaa laga gun gaarayo asbaabti keentay waxaas ayada ah marka degmadan iyo degmooyinka kaleba hawshaasi sidii loo bilaabo waaye haddii Allah awoodda noo ogolaado goobaha fasaadka lagula tunto iyo meelaha qashinka lagu iibiyo iyo goobaha maaragtay waxyaabahan raalliga aysan ka ahayn akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka toosan kulligood waa lala dagaalami doonaa